بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربنا عاوي إن نورس حافظات يركز مينه عذر كورونا فيروس. سيدات أركيسين قذا شيء واحد تاجن جدي قيبيسي كل الدونا اللي قلت لك قلنا كشقيان كهرتجع عذر كان. هدي أن هذا الكيك كوب اللابو وربحنير أو ككوبان وحياله قبصومي أو دعي. هولها عافمات حكمين تعذرك كوفيد وزارة عافماتك وحي سيد جوكتا ودا باريستا دادك لوغا شكية حنونك وحي سميسي حرون لغو داوية بوكانك لغا هلو iyo wacyigelin joogto ah dabcan iyadoo kaalmaysanaysa hay'adaha kala duwan ee dawladda laga bilaabo 10kii bisha Maarso wasaaradda waxay howlgelisay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka COVID-19 taasoo qaada ilaa iyo 100 qofood xarunta wali waa ay shaqeysaa dadkii la geeyay waa ay dhameysteen muddadii loogu talagalay hal qof oo kamid ah dadkii lagu karantiilay waxaa laga helay cudurka dhammaan dadka la karantiilay waxaa diyaaradaha ay la soo saarnaayeen dad laga helay cudurkii dadkaasna waxay dhamaayeen ilaa iyo 166 qofood dhammaantood waa la socday xaalkooda waxayna dhameysteen muddadii la socoshada haddaan ka hadalno baaritaanka cudurka shaybaarka ilaa inta la howlgeliyay shaybaarka qaranka 7 Abriil waxaa la baaray 186 qofood oo looga shakiyay cudurka waxaa laga helay 80 qofood 80 kaas laga helay 70 kamid ah waa rag 10 waa dumar dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhaxaysaa 20 ilaa 40 jir kuwaas oo ah 60% bukaanka la xaqiijiyay bukaanada la xaqiijiyay inay qabaan cudurka 100% in ka badan 90 waxa ay joogaan magaalada Muqdisho inta testiga lagu sameeyay markii laga soo bilaabo 16 Abriil 2020 waa 193 inta la xaqiijiyay inay positive tahay inta xaaladood oo positive ah waa 80 inta la xaqiijiyay positive ka ah ee labka ah waa 70
inta la xaqiijiyay ee dhadiga ahna waa 10 ilaa iyo maanta galabta waxaa la baaraya ku dhawaad 47 xaaladood kale oo aan sugayna berri haddii alla idmo natiijadooda haddii aan fiirino da'da ay u dhaxeeyaan dadka laga helay cudurka eber iyo 20 sano da'da u dhaxaysa waxaa laga helay 3 20 ilaa iyo 40 sano dadka jirana waxaa laga helay 48 qofood 40 ilaa iyo 60 jirna waxaa laga helay 16 qofood 60 iyo ka badanna waxaa laga helay 13 qofood guud ahaan tirada sidaan hore u soo sheegay waa 80 qof magaalada muqdisho inta qof oo laga helay waa 73 magaalada hargeysa waxaa laga helay 5 magaalada kismaayo waxaa laga helay 2 tirada guud waa 80 ilaahay ha u naxariista jannadina ha ka waraabiyo waxaa cudurka u dhintay 5 ruux oo 3 ay ku dhimatay isbitaallo markii laga soo qaaday sambalka oo baaritaanka loo diray kadib geeriyooday dadkaas waxay u badnaayeen dad xanuuno hore la tacaalayo u ildarnaa ilaahay waxaan ka barin inuu jannada ka waraabiyo daaweynta bukaanka wasaaradda waxay u asteysay isbitaal Martini inuu noqdo xarunta daaweynta markii isbitaalka loo asteeyay la tacaalidda bukaanka laga helo cudurka waxaa loo qoondeeyay 46 sariirood oo kaliya waxaa yaalay 8 mashiin oxygen ah oo midkood uusan shaqaynaynin sidoo kale isbitaalka ma lahayn xarun daryeel bukaanada daran ICU waxaa la dhammaystiray dhismaha qaybta ICU-da waxaa la dhigayaa 25 sariirood oo qalabkooda u dhammaystiran yahay si loogu daaweeyo bukaanka u baahan ICU waxaa la kordhiyay tirada mashiinada oxygen-ka hadda waxaa yaala 50 sariirood oo leh mashiinka oxygen-ka kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanka uu xanuunku ku rido neef qabad waxaa isbitaalka hadda taalo 10 bukaan oo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo waxaa loo soo wareejiyay 10 takhtar iyo 10 kalkaaliye caafimaad oo laga keenay isbitaalka Digfer oo si joogto ah isbitaalka u joogaya ilaa iyo shaqada ay ka dhameynayaan markii ay dhameeyaan geri doona karantiil group kalena uu bedeli doono haddii alla idmo si iyagana badqabkooda loo xoojiyo ee ummadina ay u kaalmeeyaan daawada agabka iyo qalabka caafimaadka dawladda waxa ay heshay ku dhawaad 20 iyo ka badan mitritan oo isugu jira qalab agab iyo daawooyin caafimaad loogu talagalay la tacaalidda cudurka COVID-19 agabka waxa ay isugu jiraan kuwa loogu hortago faafidda iyo badbaadinta hawlwadeennada caafimaadka loo yaqaan PPE personal protection equipment daaweynta bukaanka agabka caafimaad sida sariiro iyo mashiino dhammaan kaalmadaas waxaan ka helay dawladda sida Jack Ma Foundation ninkii maalqabeenka ah ee ugu deeqa wadamada Afrika 54 inuu u diro gargaar caafimaad wadanka United Arab Emirates hay'adda WHO hay'adda IOM iyo hay'adda ACF kaalmada u dambeysay ee shalayna soo gaartay waxa ay ka timid Jack Ma Foundation waxaana isugu jirtay 7 shay shan xaba ah iyo medical gownka oo ah 36 medical gloves geedaha gacmaha la gashto oo ah ilaa iyo 19 kun
waxaan u mahad celinaynaa cid allaale ciddii deeqna la soo gaartay wacyigelinta wasaaradda waxay si joogto ah u wadaa fariimaha wacyigelinta ka hortagga cudurka laga baahiyo ilaa iyo 15 raadiyo kuwaasoo ku yaala guud ahaan waddankoo idil dhammaan tirada guud ee fariimahaas la rabo in la gaarsiiyo waa 6 milyan oo qofood ugu yaraan wacyigelinta way socotaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid allaale ciddii ka qayb qaadatay wacyigelinta iyo ka hortegidda cudurka coronavirus walaalayaal waxaan isku waaninaynaa mar walba in aan xakamayno cudurkan ilaahay naga haayo siyaabaha aan ku dadaali karno inaan ku xakamayno waa ka hortagga annagoo raacna talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan howlwadeennada caafimaadka ee ah in gacmaha ugu yaraan 20 seconds la dhaqo saabuun lagu dhaqo in la kala dheereeyo dadka masaafada isku jirsanayaan social physical distancing in meelaha buuqa aan la isugu tagin la yareeyo oo aanan la ciriiri la gelinin dadka qaba cudurrada raaga chronic diseaseska oo ah dadka aad ugu nugul cudurka waxaan ku waaninaynaa bulshada in xanaano gaara la siiyo inaanan ciriiri la gelinin in laga hortago wax kasta oo dhib u keeni kara iyo in guriga la joogo qof allaala qofkii awooda waxaan isku dayaynaa wax allaala wixii tabarteena inaan qaybino in face mask afka la xirto meelaha baabuurta iyo shirarka iyo bannaanka markii loo baxo ilaahay wuxuuna faray inaan dadaalno cudurka aan ka hortagiisa waxaan isku waaninaynaa insha Allah tacaala ilaahay inuu naga haayo laakiin aan dadaalno sidaan u xakameyn lahayn aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا مقليسين وقدق قابل سن حكمينتا يكهورتقا عذرك أصغى ودلاقة أنا كعلماء أهان shalay bayaan baan soo saarnay mowduucan ku saabsan oo dadka aan u sheegnay marka hore horta inay ogaadaan waxa inay musiibo yihiin musiibana xagga Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa loogu cararaa asaga ayaa la weydiisay inuu naga faydo marka toobadkeen iyo iscafin iyo dulmiga oo la joojiyo iyo dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u noqda oo dadka xaqullah wa xaqunnaas iska ilaaliya horta halkaas dardaarankeena markasta joogtada ah weeyaan mid labaad waxa weeye maadaama cudurku halis uu yahay oo aadan u fidahayo diinteena muqaddaska waxaana siisay jaanis bayna siisay iyo ruqsad qofka muslimka loo fududaynayo in naftiisa uusan dhibin ama dadka muslimiinta uusan dhibin walidaalika waxay culimadu soo jeediyeen oo noo caddeeyeen qofkii cudurkan isku og inaysan u bannaanayn inuu masaajidda iyo meelaha kulanka uu tago qofkii kale xataa ay u bannaan tahay inuu maaragtay iska joogo gurigiisa oo salaada jumcada iyo jamaacada ay ka dhacayso qof kastoo naftiisa u baqahaya runtii qof kasta inuu naftiisa u baqo waqtigeedii baa la joogaa fiditaanka cudurkana aad buu halis u yahay si fudud buu maaragtay ayuu u fidayaa marka annagoo ka faa'iidaysanayna jaaniska diintuna siisay in dadka muslimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan dadka cudurrada maxaanku khatarta qaba ama dadka da'da ah oo cudurka aad iyo aad u maaragtay wuxuu yeelayn karo inay naftooda u baqaan oo naftooda ilaaliyaan ayaa xaq loogu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa rusadana siiyay markii laga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay oo qofku asagu is dhibin sida xadiidku ahaa laa darara walaa diraar dhibo shay bannaan maaha marka talooyinka aan soo jeedin oo ahaa qof inuu gurigiisa ku tukan karo ayaan adkaynaynaa gaar ahaan dadka maaragtay waayeelka
iyo dadka xanuunsan iyo dadka nugul in marka jamacooyinka iyo jamacada la oogo laakiin si kooban loo oogo si dadka maaragtay caafimaadkooda loo ilaaliyo ayaan adkaynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku darayaa insha allahu tacaala cudurkaani dhibaatada uu geysanaya dhibaato caafimaad keliya ma aha dhibaato dhaqaala ku jirta dhibaato xagga maciishada ayaa ku jirta marka ayadana in maaragtay la iskaalmeeyo oo la iska warqabo bishii ramadaana soo dhow gaar ahaan waxaan kusoo khatimayaa walaalayaal talooyinka culummadu ay soo jeedinayaan iyo talooyinka hay-aadka caafimaadka qaabilsan ama amniga qaabilsan ay soo jeedinayaan in la adeeco laga dambeeyaa waa shay waajib ah diinteenna ayaana amraysa in amarka danta guuda la kala qaato allah subxana wa tacala waa sayi lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka muminiinta ahow ilaahi subxaana wa tacaala ateeca rasuulkiisana ateeca sala allahu calayh wasalam dadkiina mas-uuliyiinta ahna ateeca marka mas-uuliyiintaas hadday culamo yihiinna way hadleen hadday mas-uuliyiin kale oo dowladda ahna way hadleen marka in maaragtay amarka la qaato amarkaasna amar laydinku dhibaya maahane waad mahadsantahay sheekh bashiir bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta meeshaan waxaan isugu imaannay in aan ama wacyigelin ama ogeysiis xaaladda uu noo maraayo cudurkan coronavirus ama covid-19 oo dhib weyn ku hayo bulshadeenna annaga haddaan takhaatiirnahay waxaan dadkeenna u sheegaynaa wacyigelinta waa muhim in wareegga la yareeyo hadduusan muhim ahayn in mataqaanaa maask la xirto waxaa jiro tusaalayaal iyo ogeysiis ka soo baxday WHO-da ayaa markii u dambeysay haddii qof dariiqa maraya oo qufaco ama hindhiso oo cudurka qabo keligiisna uu yahay oo meesha maraayo oo qof kale aan la joogin hawada uu maray ilaa 2 mitir viruskii ayaa joogaya 8 saac uu joogaya qof aan mask ma wadan dhul bannaan oo soo maraya waa neefsanaa cudurkii u qaadaya taas waxay ku tusaysaa waajibaadka la rabo qof walba inuu iska saaro mask inuu xirto geedan inuu xirto in sanka iyo afka la daboolo in gacmaha la dhaqdo in sida laysku dhowri karo laysku dhowro taas waxa waaye waa muhim wacyigelinta aan mar kastoo aan fidinno hormuud ay nagu caawintay oo maanta ninkii taleefon diro wacyigelintaasi tuu helayaa wasiiraddeena caafimaadka hadda waa sheegaysay sheekh bashiir sidoo kale waxaa la rabaa arrintan inaan ahaano aan iska dhigno dad mas-uul ah takhaatiir haddaan nahay aan farayno cudurkan waxaa looga rayn karaa waxa waaye annagoo wada jirno wacyigelinta iyo waxyaalaha aan siisiinayna qaadanno ama wiirta ka soo baxayso takhaatiirta iyo hay-adaha dowladda iyo culimaa udiinka waxaan ku talin lahaa marka biisteeda laga qaadayo bukaankaasitood in bukaanka la yidhaahdo dhinac u jeeso oosan adiga kugu soo jeesan stethoscope-kaada geedka dhagaha la gashanaya aad qaadatid aad dhegaysatid haddii loo baahdo raajada aad u dirtid diagnosigi wixii aad samayso hadduu u baahan yahay inuu isbitaal aado
inaad u dirto isbitaalka martini maanta isbitaalka martini waa isbitaalka arrintaanita u qalabaysan waa inaan arrintaanita samaynaa waxaa la rabaa dhakhtarka inuusan iska dhow arrintaanitood adduunka ku faafay annagu ka booliis ahaan annagu fulinayna awaamirtii ka soo baxday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qayb ka mid ah ay ahayd la dagaalanka oo ahaa bandowga wuxuu noo bilowday habeen hore oo bishu ahayd 15 sideedii fiidnimo si fiican oo muxuu ahaa bilow fiicana ayaana loogu howlgalay waxaa ka howlgalay ciidamada qalabka sida oo dhammaan aan kulligood ku wada jiraan waxaa ka qayb galay wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo hay'ado kale oo ay ka mid ahayd maamulka degmooyinka iyo gobolka Banaadir howlgalkaas wuxuu ku bilowday bandowga ahi si degan oo mas'uuliyad ku jirto oo muxuu ahaa aan wax dhibaato lagala kulmin waxaana asal iyo saldhig u ahaa ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo iyagu xilkasnimadooda muujiyay oo iyadoon cidna aan la khasbin sideedii fiidnimo qof walba uu gurigiisii aaday iyada oo mar walba maanka lagu hayay inay muhiim tahay in meelaha ay ka adeegan karaan muxuu cunooyinka qalalan iyo ka qaadanayaan caafimaadka isbitaalada ay u furnaayeen waxa inta dheer iskaashiga ciidamada iyo muxuu ahaa gobolka Banaadir oo degmooyinka ay wacyigelin iyo wasaaradda warfaafinta iyo wariyaasha kala duwan kanaalada kala duwan ee dalka jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka qayb qaateen wacyigelinta inay dadka u sheegaan sidii ay ugu hirgeli lahaa muxuu ahaa bandowgan iyo faa'iidada ku jirta iyo imkaaniyaad badan oo ay u diyaariyeen inay
aad iyo aad buuna muxuu ahaa noo soo jiitay sida muxuu ahaa xalay uu u hirgalay degmooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleed dowladeedka dalka oo dhanna ishaa lagu hayaa waxaana la eegayaa degmo walba ama gobol walba ama maamul goboleed walba caawana aan ku celinayaa mar labaad in ciidamada qalabka sida ee jooga checkpointyada ama meelaha loogu talagalay inay dadka ku kontaroolaan iyagoo amniga dhowraya oo hawl adag qabta oo muxuu ahaa aan la-aanteed magaaladana sidaan ahaateen haddana waxaa saaran waajibaad gaar ah oo ah la dhaqanka dadka waxaanu rabnaa waana ciidanka la farayaa inay dadka u naxariistaan inay baabuurka joojiyaan inay eegaan umulaha la wado dadka waayeelka la wado dadka uu cudurkan soo rito la doonayo inay qiimeeyaan xaaladda oo ay baabuurtaas iyo kuwa khudaarta wada iyo kuwa dekada ka shaqaynaya oo dalka ay kala xirin caadi ay u socotaan wixii lagama maarmaan ah waxaan sidoo kale dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidamada u fududeeyaan oo ninkii wax muhiima oo dan weyn oo muhiima markaa aanu soconin oo aan islahayn mataqaanaa ama farmashee wax ka soo gado ama cunno soo gado ama hawl gaara aanu soconin inuu u fududeeyo ciidamada inay waajibaadkooda gutaan waxaan rabnaa ciidamadu inay ogaadaan waxaanu meesha u goynay inay naf badbaadiyaan ma doonayno in ay naf ku baxdo asbaabo oo muxuu ahaa ay keeneen ciidan waddo taagan oo dad celinaya ay keenaan baabuurta caadiga ah ee aan baabuurta shaqada u socota kuwa meediyaha ay wataan iyo kuwa muxuu ahaa khudaarta iyo cunnada laga maarmaanka wada dhammaan amni ahaana la baarayaa laakiin lama celinayo waddooyinka waa marayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo la-aanteed ayan waxba noo hirgelin waxaan aad ugu mahadinayaa wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka banaadir oo nagala qayb qaatay arrimaha tan bandoga kan siduu u socdo waxaad ogtihiin inuu fooda nagu soo hayo ramadaan maankaanu ku haynaa ma ilowsanin qorshaha sidii aanu muxuu ahaa dib u eegi doono sida uu noqon doono ramadaanka siduu isaguna bandowgaani uga hirgeli doono magaaladan muqdisho aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ee gacantana siisa waa u mahad celinaynaa ciidamadana waxaan ku adkaynaynaa inay dadka u naxariistaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu adduunka